ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay 12 kalena waa ay ku dhaawacantay qarax la sheegay inuu ahaa miino oo lala beegsaday mid ka mid a gaadiid watay xildhibaan cabduqaadir carabow ibraahim oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ka hadlaysa waxaanu hay wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle qaraxan oo la sheegay inuu ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda waxaa lala eegtay mid ka mid a gaadiid uu la socdo xildhibaan cabduqaadir carabow ibraahim oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka qaraxa wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Makal Mukarrama gaar ahaana halka loo yaqaan Xaaji Baasto inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyootay 4 qof waxaa dhaawac soo gaaray 12 kale goobtuu qaraxu ka dhac waxay ahayd mid mashquul badan waxaana ku yaala maqaaxiyo laga cunteeyo dukaamo iyo goobo lagu iibiyo qalabka elektarooniga goobjoogayaal ayaa u sheegay VOA in qaraxu markuu dhacay kadib rasaas ay fureen ciidamada dowladda goobtan uu ka dhashay jahawareer goobjooga ku sugnaa goobtuu qaraxu ka dhacay uga warramay VOA waxa uu arkayay qaraxu markuu dhacay kadib iyo sida xaalku noqday horta walaalow waxa waan bajaajan saarnay meesha maraynay bajaaj meesha isgoyska Xaaji Baasto waxaan daba soconay buruufta oo taqaana wax wata maqan buruuf iyo Cabdibile daba socday anagana buruuftan ku xignay maadaama Cabdibile noo ogolaanay inaan buruufta dhaafno marka qadar adiga wax yar aan u jirsanay isgooski oo buruuftii aan ku daba xigno qaraxi dhacay ilaa macna meel laga yimid garaweynay Cabdibile waxaana filay inuu xaleelay Cabdibile waxa ugu horeeyay indhaga qabteen waxay ahayd dad fara badan oo maqaayada horteeda dad qaar taagnaa iyo dadkii kaleeto iyo waliba qofkii aan u soconay oo aan bajaaj u saarnay oo dhaawac oo meeshii ma taqaana dhaawacmay waxa indhaga taas yaad u socoteen adinka yar meeshii taagnaa oo maqaayada la furay oo hor taagnaa u soconay maqaayada xagee ku taala la furay maqaayada ku taala isgooska Xaaji Baasto isgooska ku taalay marka qaraxna isgooska oo ka dhacay waxaan filayaa inuu xaleelay gaariga Cabdibilaha marka indhaga ay qabteen dadkaas oo meesha daadsan maxalli jiray bajaajyadii meesha yaalay iyo waliba dhibaatada intaas waa ka sii fogeed macnaha anagu waa dareemi kartaa qof meel qarax ka dhacay dhex taagnaa macnaha oo badbaaday korkiisa waxba gaarin oo Ilaahay badbaadiyay waa dareemi kartaa qalqalka oo dareemayo marka isla markiiba naftu waxay u qasabtay in cararno soo cararno dhankan maadaama ay socdeen xabada aad u fara badan xabadaas ay ridayeen askartii Cabdibile la socotay qaarkood qaar kale oo askartii isgoos shaqaalaha joogtay xabadii aad u badnaayeen darteed waxaan sameeynaa nafteen la cararno marka qofka dhaawacmay adigu waa taqaana ma kula socdo mise meeshuu joogay qofkii meeshuu joogay meeshuu taagnaa jidku taagnaa dhaawac qofka gaaray la jidku taagnaa dhaawac xoog la gaaray inkastoo iska caafimaad qaba hadeertaan insha Allah isbitaalkii hadda kina madna saacadaan la joogo ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa lala beegsaday xildhibaan cabduqaadir carabow ibraahim oo xilligaasi wadada marayay ma jira wax waro ka soo baxa dowladda Soomaaliya oo ku qotoma tafaasiisha la xiriirta qaraxan ka dhacay wadada mashquulka badan Makal Mukarrama ee waxyeelada ka soo gaartay ilaaladii waday xildhibaan cabduqaadir carabow ibraahim oo gaari la socday ee waxyeelada ka soo gaartay cabduqaadir okay VOA Muqdisho safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya ee magaaladan Washington Cali Shariif Axmed ayaa toddobaadkan aqalka cad waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa danjiray Cali Shariif ka gudoomay waraaqadahaasi aqoonsiga wuxuu noqonayaa danjirihii saddexaad ee Soomaaliya Washington u soo dirtay laga soo bilaabo sanadkii 2014 Cali Shariif ayaa ka hor inta aanan xilkan loo magacaabin waxa uu noqday safiirka Soomaaliya ee Itoobiya iyo sidoo kale dalka Faransiiska haddaba goor dhow ayaa khadka Skype-ka oo galabtadan horeta ah waa marka ay tahay xaggan Washington galabnimadii waxaa kula xiriirtay safiirka cusub Falastiin Axmed Iimaan wuxuuna uga warramay sida warqadihiisa ugu gudbiyay madaxweynaha Mareykanka aad baad u mahadsantahay Falastiin madaxweynaha waraaqihii aqoonsiga ayaan u gudbiyey oo isagana iga aqbalay waxaa kale oo aan u gudbiyey fariin aan oga siday madaxda dalka khaasatan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxyaalaha aan wax iska niri waxay ahayd markaa kadib xiriirka labada wadan oo muxuu ahaa runtii meel fiican arrintiisa ay marayso iyo sidii loo xoojin lahaa wuxuuna muxuu ahaayey ii ballan qaaday Soomaaliya in ay garab taagan yihiin ayna ku faraxsan yihiin ilaa iyo hadeer
horumarka la gaaray ee laga gaaray muxuu ahaa dhinaca siyaasadda iyo amniga iyo intaba. marka safir inta badan marka la fiiriyo siyaasadda madaxweyne Trump ee wadamada dibadda gaar ahaan Afrika ma aanay ahayn mid aad u cad. muxuu marka kuu sheegay oo gaar ah inay Afrika ka qabanayaan? waxyaalo Afrika oo caam ah Afrika igalama uusan hadlin. waxa maxay ahayd wada hadalka iyaga uu ku ekaa Soomaaliya iyo muxuu ahaayay United States of America, cilaaqaadka wanaagsan ee taabo qaaday ee meesha fiican marahaya, khaasatan runtii oo sii xoogaystay intii isaga uu muxuu ahaayay xafiiska yimid, oo sidaad og tahay safaaraddii xamar bay timid, muxuu ahaayay diplomatic muxuu ahaayay safiir khibrad lahoo weyn bay meeshii keeneen. USAID baa meeshii muxuu ahaa xamar timid oo muxuu ahaayay markii ugu horreysay. marka dhinac walba maadaama muxuu ahaayay cilaaqaadka annagii uu aad u wanaagsan yahay, taa un baan ka wada hadalnay iyo sidii loo xoojin lahaa oo loo taabaqaadi lahaa oo meesha uu hadda gaarsiisan yahay iyo meel ka fog loo gaarsiin lahaa. wuxuuna ii ballan qaaday arrintaa iyada ah dowladdoodu inay muxuu ahaa ay dhab ay ka tahay, ayna nala gaarsiin doonaan maxay ahayd in yacni cilaaqaadku meesha ugu sarreysay. waxaa tahay safiirkii saddexaad ee Soomaaliya ee Washington loo soo magacaabo. maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee safaaraddu ay qabatay? sidee hawsha safaaraddu idinkugu socotaa xiriirka caalamiga ah marka la fiiriyo, ama Washington ha noqoto ama wadamada kale ee safaaradaha kule ha noqdaan? wallahi walaalay dee anigu waxyaalaha uun dee waddankan Maraykanka iyo xiriirka aan la leenahay iyo joogitaankiisa inaan joogno, uu safiir joogo muhiim bay noo tahay. maxay ahayd madaxda dowladdu waxay u arkayaan runtii muhiim. waxaa sharafi ah in runtii la ii gartay nin mateli kara ummadda Soomaaliyeed ee waddankan masaalixda weyn ay nooga xiran tahayna ka raadin karo inaan ahay, taasoo aan uga mahadcelinahay madaxdii kalsoonidii ugu siisay. waxaana u ballan qaadayaa dadka shacabka Soomaaliyeed in muxuu ahaa aanan ka fariisan doonin wixii intii awoodayada ah, laakiin dee diblomaasiyaddu safiir iyo muxuu ahay markii meesha la tago. aniga haddaan imid markaan hadda imid dee waxaan wataa mashaariic, yani waxaan wataa muxuu ahaa programkaas oo un markaan aniga fariisto oo aan salka dhulka dhigo un aan ka howlgeli doono haddii ilaahay ka dhigo. waxaa jirta in shirka qaramada midoobay uu furmayo, madaxda dowladda yaa imanaya shirkaasi. maxaase kulamo ah oo idin qorshaysan oo aad la yeelanaysaan madaxda kala duwan ee caalamka ee shirka imaanaysa iyo Maraykankaba? the UN Security Council General Assembly-ga waxa sanadkiiba mar dhacayay. waxaa anagu hadda kulley imanaya oo aan muxuu ahaa madaxweynaha ayaa iman doona oo kasoo qaybgeli doona. runtii madax fara badan oo ama Maraykan ah ama caalamka kala baana muxuu ahaay inaan aragno waa ay muxuu ahaay noo qorshaysan tahay oo programkan waa inoogu jirtaa, dow aan hadda aanan ku dhihi karin hebel iyo hebel baan arkaynaa. kaasi waxa uu ahaa danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya ee usoo magacooday dalkan Maraykanka, safiir Axmed Cali. waa Cali Shariif Axmed oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. iyadoo sanadahan daba bulshada Soomaalida si weyn ay uga cabanayaan hoos u dhac ku yimid dhinaca dhaqaalaha qoyska, kaasoo ay keeneen shaqalaanta iyo dakhliga qoyska hooseeya, ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin qoysaska Soomaaliyeed dulsaar kusii noqday kuwii hore marka la eego, waana dhinaca tiknolojiyadda casriga ah. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haysa wariyaha VOA-da magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac. qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii. waana arrin ragaadisay qoysas badan oo ay ku adkaatay inay ka gudbaan duruufo adag oo ku xeeran noloshooda mar kasta. Dr. Yaasiin Beeldaaji Xaaji Cabdulaahi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana uu inoo sharaxayaa
habka ugu wanaagsan ee ay qoysaskani dakhligooda u maarayn karaan. haddii soo galo dhaqaale kasoo qaad ilaa $1,000 ama $300 u dhexeeyo waa inuu sameeyaa wax la yidhaahdo qorshe ku talagal dhaqaalihiisa ah. waxaa loo kala qaadaa 2 qaybood. qayb waa inta ah mar walba waxa u baahan tahay, waxaa ka mid a marmar waxa u baahan tahay raashinka ka mid a. qaybina waa marmar waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guryaha la dhigto kaleeto. yani mar walba uma baahnid 3 bilood mar walba u baahan tahay, sanadkii mar walba u baahan tahay. dharkoo kale mar walba uma baahnid, tiifiyada iyo mobile phone-ada mar walba uma baahnid. laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheeri u baahan tahay. marka inuu qofku qorshayso matalan haddii lacag soo gasho kasoo qaad 800 oo kale, inuu 400 waa kaydsanaya waan dhiganayaa, 400 waan isticmaalaya oo waxaan u isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegay oo kaleeto. 400 oo uu kaydinayo waa inay noqotaa qorshe fog. inta kaydinaya 2 sano 1 sano hadduu se kaydiyo muxuu ku samayn doonaa? waa inuu sii ogyahay oo sii qortaa. inaga waxba qor. Kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guulaysto dhinacyada asaasiga u ah nolosha. haddiise qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga u soo xorooda, waxa uu noqdaa dayn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku imaan kara. de wax adiga haysan inaad isticmaashid waxay ku keenaysaa inaad deymo fara badan gashid oo aad noqoto deyn ku nool. psychological problem bay keenaysaa, stress fara badan, sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan baa isticmaalaysaa. 300 baa adiga qaataa, 800 baa isticmaalaysaa, 300 baa qaataa, 500 baa isticmaalaysaa. waa in adiga ka badan. waa maxaa imaanaya marka waxaa imaanaya in qoys burbur baa imaanaya, sababtoo ah haddii deyn fara badan lagu yeesho, haddii baahidaadu ay badnaato, macnaha waxaa imaanaya dhaqaale xume ama maaraynta dhaqaalaha oo aad u xumaanaya. marka taas waxaa uga bixi kartaa in dib laysugu laabto oo aad qorshaysid oo adiga baahidaada keliya inta kusoo gasha aad isticmaashid, inta kalena dee aadan u isticmaal. dii kale waxay noqonaysaa deyn ku nool oo deyn bay noqonaysaa inta kale ku nooshahay. waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan, sida waxaysasiinta oo aan lagu salayn baahida qofka. haddaba saamayn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha haddiise ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan? maxaa dhacaya? Dr. Yaasiin ayaa mar kale inoo sharaxaya. Mid waxa arkaysaa Yurub dad wada shaqeeya oo saaxiibo ah, qadadoo kaleeto ilaa 6 qof baa baar fadhiisanaya, nin walba jeebkiisu ka bixinaya. Soomaalida aad bay u taqaana dibcad xun oo marka xataa dadku isticmaalaan wala isku caaya waxa la dhahaa wadada Yurubiyan baa noqotay. laakiin arrin dhaqaale ku salaysan weeye. haddii qofku marka uu ku talagalo, aniga kama hormaanay dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida ah, laakiin haddii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku uu ugu talagalay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu talagalay ama kharaj miisaaniyad ugu talagalay lacag inuu ku bixiyo oo uu shaah lagu cabo, cunto kale lagu cuno, saaxiibada lagu raaco, waa gooni oo wuxuu ku darayaa budgetkiisa. laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay samaystaan sida dawladdu u samaystaan oo kale budget yar 300 u marayna halkaas budget ka baro ma qoyskuna dawladda iyaga noqda. Soomaalida meesha ka qaribanta halkaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha oo qoysaska dhaqaalaha oo isu tigay dhaqaalaha guud ee waddanka noqda. dadka waddanka jooga u keenay waa kamid, sababtoo ninkii lacag ma dhiganayo 300 oo dhigi lahaa uu soo diray soo maaha. marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa bay ka dhinaatay, dhinaca xaggana wax weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax uu cunayo kaliya. sababtoo qofka haddii maanta wax iska siisid adiga waa sii diraysaa laftigaaga, way tiraahdaa war intaas oo sanad aniga ku biilayay maxaa adigana haysaa. arrinta noocaas hadda diaspora qaar ba balowday. dad baa 400 soo diri jiray, 200 oo kamid meel ba u dhigayaan, 200 bay waxay ka yareynayaan lacagtii loo wada diri jiray. 2 sano markay gaarto ma 1 sano wuxuu soo dirayaa lacag isku duuban oo leeyahay ganacsi ku sameeyo idhaaf. kala qarsoonaanta dhaqaalaha ayaa sababta in culays garowsho la'aani ay ku dhacdo odaga reerka maamula. si haddaba arrintaa looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan. min hadda waxa anaga ina ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado waxa kamid ah waa la kala qarsoon yahay. waxa laga yaabaa familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo xaaska iyo caruurta, ninka waxa soo gala ma yaqaanin. marka waxay u maleynayaan in kharaj fara badan soo galo. taas waxay keenaysaa taas waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku uu kharaj badan isticmaalo. sababta waxa laga yaabaa inaysan ka warhayn waxa soo gala. waa in ninku uu shiriya si dawladda kaleeto ay shiraan xaaskii fadhiyo, caruurtii fadhidaha uu yiraahdo aniga oo ah aabihiin intaas ay soo gashaa, intaa waxbarashada ugu talagalay, intaa wax lagu talagalay lafkeena maxaa la dhahaa cuntada iyo raashinka. marka qoyskii kalsoonideedu kordhaysaa. laakiin haddii ninkiiba uu qariyo anigu waa shaqeeyaa
ninka iska labisano baabuurka wato oo waxay iimaanayaan in milyan soo galo midda kale waa inuu qorshe jiraa oo qorshe u sii sheegtaa waa tirada war hadda guri ijaaraan ku jirnaa guri waa inaan dhisanaa waa inaan baabuur iibsanaa waa inuu sii sheegaa oo familkana ay go'aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska Soomaaliyeed mid ay ku horumaraan muhiimadda dhabta ahi waa in qoysku uu ku midaysan yahay talada isla markaasna uu sameeyo xisaabtan dhab ah sidaasi waxaa yiri Cabdulaahi Maxamuud Xasan oo ku sugan magaalada Boosaaso ma xisaabtano dad yacni xisaabtama oo maxaa ina soo galay maxaynu haysanaa qoysku isula yimaado wiil iyo gabadhba ma jirto waxa weeye qof kasti waa keligiisu tashanaya qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxa muuqata in qaarkood ay xisaabtan la'aan u isticmaalaan kharashaad fara badan oo ka koreeya mushaharka ama lacagta yar ee ay bishii helaan iyagoo aan ka fekerin inay dhigtaan kayd lacageed waxaana arrintan barbar socda iyadoo sanadihii u dambeeyay ay bulshada ku soo korortay isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah taasoo u baahan kharashaad ka baxsan biilka qoyska warbixinteena labaad ayaan ku eegi doonaa Faadime Yaasin Jaamac VOA Boosaaso